waxay leeyihiin irir iyagaa keenay irir wax la yidhaahdaana ma jiraan dadku waa Soomaali yay noo keenin irir iyo wax la yidhaahdo muxuu ahaa kii kale iyana ma xasuustee wax la yidhaahdo qabiil iyo qabyaalad bay u ordayaan xasan sheekh bay u ordayaan maxay ahaydee marba meel bay u ordayaan xasan sheekh waa kii shalay maanta ismuu bedel maniiba miyuu cusub yahay maxay ahaydee inay intay hadal la turturaan ay baxsadaan looma baahna hadday geesiyaan leenahay waa kuwa faanayee ha dhegaystaan dadka ha dhegaystaan xiniyaha ay ku hadlayaan ay ku baqbaqleeyihiin ha ku dhegaystaan dadka waana argagixiso waana la og yahay ummadda Soomaaliyeedna way og yihiin ayagaana marxanti isugu filan maxay dadka u leynayaan maxay khaniisyada u soo dhawaysanayaan oo ay u xireen Cabdimaalik markuu yiri khaniisyada inaga daayay aqoonsina ma helayaan iyana way og yihiin maxay ahaydee hana qabto baasaboorkan ay ku ciyaarayaan intay soo qaateen iskaga dhimeen Yurub oo ay wada leeyihiin hoostana ay ku wataan TPLF dushana ay ka yihiin Soomaali shisheeye kalkaalku muutu biqaydiku markasta ayadahan soo daleeshada caadadiina ku dhintay bugtadiina iyo dadka kala geynaysan Soomaaliduna iyagay ka dagilaadahay runta mal raba xaqiiq raba Soomaalidu iyagay ka dagilaadahay maanta ka daga sawadarka doontaan dil dambe ma dhici doono maanta laascaanood waa kuwa gacanteeda ay ka baxday dil dambe maxay ahayd ma dhici doono wax dambe lama dil doono waxa weeyaan argagixisadu way dhacaysaa dhawn baanu leenahay intaasaan dhihi lahaa maxay ahayd karbaashay maansooyin baan ku soo karbaashay hadii lahayd waa maasantay Xaliima iyo Bashiir oo hadaad wax ku darsanaysiin waa ku darsanaysiin hadii kala dadka gacanta u taagan taan siinaya sax weeyaan أنا هالكلمة بان لو كلمات بان كنت رأي مدوى سؤال ومدى ربينا كور مرصد وحويان ربي هذه أنا نذكر ربيعستان ربي نبان كاهو الرئيسيني وهي أصلا متبقى ماشى تفقصون قطعين سيان ربي كبعضنا أذكر ربيعستان ربي حتى أدو كهر رأينا وكذي لو فقطوا كرباش ورقبا نبرع كرباش يعني وحربينا كويديو أدينا ربينا سؤال كويديو balni horta magaca la faqoota ku saaran maxaad ka waday macnihiisa balno macnaha sababta aad u saaratay muxuu ka turjuman yahay adoo hatta in raawda la hadana la faqoota ayaa ku qoran waay waa su'aasha kuwan arinta labaad waxa weeyaan warana ku sheegay joogarta maxay ahayd la faqoota horta waxaan ugu qortay iyaguba laf bay dhigi waayeen marka haday laf dhigi waayeen in aadna laftaada la soo baxdo maxay cadaaladda ayaa maaragtay cadaaladda weey hadday lafaha dhigaana annaguna lafta waa dhigana annagu lafaha ma qaadan jirin awalo banaanka intaan la soo baxno Soomaaliyana dishay iyo maxay ahaydee wala naxasuuqimaan oran jirin laakiin de markii maaragtay laf maalin walba halka la soo joogsaday oday Allah naxariistay dhintay oo Soomaali wax u qabtay oo maaragtay isagu wixii camal wanaag iyo xumaan intaba uu lahaa la tagay marka maalin walba la aflagaadeeyo hadaa damiir leedahay adiga xumaan kugu tahay marka taas waa taa walaalkay ku socoto bigaaga ka hadal karbaash asalaam iyo argagixisadu xaq iska soo galaan ku soco raygaaga waxaan ku yiri halkan bay joogaan yaalkii yaraaye maaragtay 10 loo dhigi jiray diyaarada loo saaray Hargeysa halkan ay ka buuxaanay markay qurbaha yimaadaan Soomaalinimada isku dhiiba marka ku soco kalaan ku soconaya niyo waxaan arrin kale oo la yaab la'aan yaan kula kulmay maalin dhaweyd halkan magaalada Jigjiga waxaa jira waa dhexdaas oo cabaar jirta markii ay horta sababta ay Somaliland maamulka gooni goosadka Somaliland anu luqada aad ku sii adag ma isticmaalaye maamulka gooni goosadku markii wuxuu lahaan jiray waxa wadanka ku hayay oo dhulkan SSC inuu qabsado sabab uu ahaa oo naas nuujinay oo ayaguna ay hoosta uga shaqeynayeen niman la dhaho TPLF sida gabar sheegtay oo ah dadkay u soo qaban jireen dadkii onalif halgamayay iyo xataa dadka goboladaas koonfurta Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho oo aad ula dagaalantay nimankan TPLF ahaa dadkii u soo qaban jiray bay ahaayeen marka dadkaas ayaa nimanka sidooda naas nuujinay maamul xoog la noqdaan nimanka markay meesha ka baxeen ay arkeen inay nimankaas u baaba'een ay waxay dhexdaas waxay sameeyeen isku day kale oo waxay dhaheen qoradan cusub ee hadda Itoobiya qabtay Oromadu waxay dhaheen waa dir oo Oromadu sidoo waa dir bay dhaheen Oromadu u yeelaan sharar bay qabteen waxay damceen arrintaas kaleensiyaan arrinta laakiin way socon weeyday Oromadu waxay dhaheen anaga waa dir ka badan iyo Soomaali oo dhan la isku daray Oromadu Soomaali waa ka badan dir kaliya in hoostay karaa si ka taw ahaatee waxaan u keenay
niman waana dhaweyto waxaa jira la yidhaahdo wallo inaad taqaanaan iyo in kale mootiye dalka Ethiopia gaar ahaan waqooyiga meesha axmaarada iyo tigreega qoomiyad muslimiin ah aad dad muslimiinta ugu dhagan ah waxay degan yihiin magaalooyinkii waa dhexdaas dagaalka aad uga socday Kombolsha iyo degan wayaan sidoo waxaa la walla waa qoomiyad aad caan uga ah Ethiopia oo aadna dad geesiyiin oo ah qoomiyadaas niman ka mid ah maalin dhexdaas oo jijii halkan istaalkan jijii ugu weyn iyo macallimiinta jaamacadda kaaba waxay dhaheen nin annaga sidanada wa haddaan wallanahay waxaan nahay qabiil kale bashiir oo codka kaa googo-aya khadka kaa xun baa u malaynaya maxay ahayday iikaadi iyo dadka intaas qod xagga khadka ka yar hagaaji maxay ahayday waxaan siinayaa nimankaas Soomaalidiidkan siinayaa maxay ahayday hablaha iyagii bay gacanta u taagan tahay Cadar iyo Shamse iyo maxay ahayday ii dulqaata iyo maxay ahayday gabadha kale walaashay ii dulqaata maxay ahayday ku soco ninka injineerka Cabdi iyo wax ugu qoran tahay ku soco maxay ahayday bal adiguna soo matag waxaad hayso warka hala keeno. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قلت النبي قال صلى عليه الصلاة والسلام وأكو صلينا محي هدي تاسيل لكن dadka ku qalasa waa yaa banud galniyo waan kaniyo waa my waqtigeyga waa it's my time in badan baa dhageysanay marka iyo horta wax doodo hadda halkan taagan oo laga wada doodo ama arko horta deydii ka waan idii tacsiideynaya dad iska dhibbaatiidin dad reer Soomaaliyeed argagixiso iyo waxan waa idinkaydee dhibida haysta weeyaan horta tacsida waxaan jeclaan lahaa maanta inaad ka doodaan oo aad ka hadashaan oo aad tiraahdaan intaasaan nagaga dhibaato amnigeyga iyo dowladdeeda hoose iyo waxa waa weeyaan laakiin halkan Somaliland waa meel barwaaqo Ilaahay dhigay marka dee wax waa idigumana diganayno dad iska masaakiinaatiidin marka waxaan leenahay danihiinu ku mashquula boundarieska iyo inch ilma aragta yar oo dhulkayga kamid ah anab iyo caashimo weysanayaan marka aragtida koowaad idii sheegayaan waxay tahay war reer Somaliland haddaanu nahay anagu dee Soomaali waa la wada yahay Islaam waa la wada yahay walaalo waa la wada yahay anigu garamaayo marka wiilka Djibouti iyo traafkiisa iyo deganaashiisa iyo nabadiisa aad ugu bogaadinaysid kan aad ku diidayso waa aragti moogta fascist iyo aad dhamaantii ka simatid marka Djibouti marka la joogana walaalantii Soomaali baad wada tihiin marka Somaliland la joogana cagtaad haysataan marka waa aragti xaasidnimo waana waxa ay haystay aad la gumaneysaan la baabaaysan marka walaalayaal waxba idin oran mayna anagu dad diban baa tiidin anagu la fayo waxaan sideen nabad anagu amni iyo nabad baan ku naaloonayna dadkayga nabad bay ku seexdaan ku soo toosaan idinka kala sheeksan oo kala buusan oo wada suspected people kala marka ama gabay soo tiri ama shirib soo tiri ama aashil soo tiriyo wadi badin runtii waa dadkaan aragnaatiidin caruurtoodii iyo wiilashoodii maalin kaste maalay anigu dhimanay marka arrimaha ka hadla arrimaha ka dooda halkan Somaliland baa la dhaa waxa laga ma yaqaanada waa argagixiso iyo aragtiyo gaaban oo alla imanaysan idinku marka dadka waaweyn waa inay xishoodaan oo ay wax isku falaan markaasi dooda macquula dadka aad ula timaadaan baa muhiima I don't know halkan inaad xasan sheekh iyo erer iyo balaayo marka idinkii aad bad u dhimatidin waan idin tacsiyadeynayna Ilaahay idin garab galo waxba Somaliland kama qaadi kartaan shiyaarkiisa ku wanaagsan insha Allah salaamti waa mahadsan tahay waad mahadsan tahay kala foqotayda waad mahadsan aqalka iikaadi walaalkay iikaadi waa mahadsan tahay saa noogu soo gaabisay sababtoo ah wax ka hadashaba waad laadahay oo maaragtay xanuun badan baa ku haya waa ognahay bashiir iyo maxay xaliima hadda wax ku darsanaysiin ma ku darsanaysiin
وريا موركا قال وريا موركا قال أدو محي هذا مثلا قوضة حقوق قرانته موركا قال قعنت صوت تاجو النظام كإلالي محي هذا هديك لا وحن نقول بنان كاتي إنك ستون إن شعلين إن نقف بنان كديكور لكن هدي ما رتسيف عنو سعوي إذا توادن تاكو قص بس مركا محي هذا وريا نجا حلو موركا جان حليما نجا توركا كي فهمي ويا ما ركت هذا الكاف سومالي قال له فهمي إنجليز أنا قرادة كمسجد إنه بنان كا قوانا يساعد maxay ahayd Bashiir iyo Xaliima taa wax ku darsanayeen ku tarsada hadii kala hablahan siinaya hablaha dadka maya dadka say gacanta ugu taagneed ma aragtaa way daaleen ilaahayse waxaan ka baryaa inta oo cudurka haya ma aragtaa oo qabiilka hayo allaha caafiyo waa u jeeday hadda ninkii hadda ma tuurteen mase hoos loo dejiyay kaaga daranka uu soo hadlay waa tuuray ana tuuray mid maaragtay maaga xiraan ku yiri dhowr jeer uu diiday marka inaan tuuro uu ku qasban yahay adu laakiin gacanta taagto ma tuurayo anu inuu halkan maaragtay Soomaali diidku ay ka hadlaan waa jecelahay in ma aragtay asalaamku ma aragtay iyo argagixisada ma aragtay halkan ka hadasho waa jecelahay oo kuwa kalena soo fuulaan laakiin dadka hadlow biliis hoos u dega dad kala soo codsanaya maxay hayday si aynu isku gaarsiino codkeenana ma aragtay loo wada maqlo marka ku soco shamso walaashay waa mahadsantahay walaalkay waxa mataqaanaa dadkan 32 sano been lagu daldalay ma ahan dadka wallahi waqooyi dad fiican oo Soomaalinimada jeclaa yani ka buuxo haddana midda kale hadii ninkan horta oo Muuse Jabhad miya Muuse ninkan oo Muuse Handaraab bay dhahan miya ma ogi oo cuqdada ka bado wajigiisa daarti xataa ka naxay wuxuu ku leeyahay madaxweynuhu noo yahay soo madaxweynuhu yahay anagaba kuwa inta koonfurta nafta noo keenay sida asaga camal dhiig yacbiyaal ah laakiin dadka dagaal ay ka daaleen oo dagaal ma rabaan yani dadka nabad ay rabaan marka hadda ay leeyihiin yani anaga dhibkayna ay ku farxayaan dhibka ilaaha keenay waana laga gudbaa tan tuka xunaa la soo maray oo xamar la isku soco karin hadda ma sha Allah ba waaybe marka uu leeyahay dhibka maanta ka dhacay ka hadla waa la wada dilay ayaga soo dileen waxaan ka ogahay Muuse Bixiya soo diray marka sidii laas caano dadku ugu dilayeen koonfurna dadka madaxa looga jibinayay shacabka ma ahan waa siyaasiyiinta waay waxa xun Muuse Bixiya inta halma maanta waxaan arkay mid hadlaayo oo ay la tahayba dhalanteedooba runsala wuxuu yiri laas caanoodoo wada noqotay buluug oo u qabtid babad may noqotay meeshii bad baan bartaa isleedahay calaamada buluug iyo dhulka dhan sida loogu xardhay ee intay la yaabeen waxay waa garawa ma ahan lagu meeshaan laas caanood ma badhici kartaba waxaaba u qabtaaba dad nool oo nafu ku jirto inuu jaabka ay ugu jiraan ayagay haystaan haddana waa tuugta maayaan walaalayaal waxa naga go'ina waaye hadda saas walaaltinimada u rabtiin dadka ma wanaagsatiin waa wanaagsanaatiin oo cadaalada ka talisiino ilaa waqooyi waa weyn tahay dadkan oo boora madagi iyo dadkan laas caanood iyo reer sanaag iyo in cadaalad wax lagu kala qaybsado ilaaha ilaan ummadda dhulku wada beeray oo qabaa'il ka wada dhigay oo nin walba meel ku abuuray hadaa wanaag raadinaysiin ma saas wanaag loo raadiyo marka qofka inta la qabta hal doorkiisa iyo shiiqiisa iyo shariifkiisa madaxa laga dilaayo oo la dhigi karo qof aan aniga ahayn dawlad ma noqon karo oo hubkii inta dadka ka dhigta ani dawladeynaysid oo tiknik ii soo qaadanaysid Soomaali kala ma adka waa la yaqaan waa la is ixtiraama ma ahane marka maanta runta la arkay waaba yaaban yihiinbo haye waa dad isku tagay hal isaaq wax man aan qabiilna soo magacaabana waa ka xumahay laakiin hal hardiis iyo inta aaleedahay ku ekaa walaalow dawladay ma aane wax ana waxa rabtid foobi laakiin aniga kugu mashquul ma ha igu mashquulin sool iyo sanaaga anigaas buluuga ha naga dhaxeeya anaga calankaas buluuga ah dada u dhintay oo god u galay waa calanka adduunka leeyaga yaqaano marka aad baxdid oo aad iga daba tahriibtid oo badda ila gashid oo qaxootiga aad tagtid والله ضد ما هذا كان إنا هذا المربي لكن ضد هذا كان يجي كينايو ضد وحجرو يعني أميش عن تجا يقدر تجي عنك بلوجة هي إسكو ديبه باسبور كي يجي أمريكا تقص عطاء وحنا إلى هذا يعني الدولة ده أنا موسى بيحسدوا لعك ومساكين تعشورتي إنه أقول بيسد الدنيا وكله وأدون كده اعتراف ما صار لوجه لا اعتراف وحلوجه لا marka cadaalad ku dhaqantid oo dawladda adiga yani aad ka mid ka tahay oo ka go'aysid aad ku ogolaa karto ma ahane yahuuda aada iyo inta ka baxay inta ka dhacay i'tiraaf asaas ku i'tiraaf lagu meehelo cadaalada lagu helaa maxay tole i'tiraafka ummadana lama jajuubo hadda xay isdaamaan waqooyi wuxuu leeyahay nabada ku haystaa uu yiri
hadda bal hal sheeka idin sheega arkay hargeysa soo maraan wallahi oo billahi oo talaa inaan been aan sheegaynin gabar yar 14 sano ma jirtaa 16 sano ma gaar caalanka buluuga si u jeceshaan ma leey kartid muuse bixiya abeeru ah way ila socotay markaas waxay tiri habar yaray ee wallahi waa iska jecelay tiri caalanka buluuga laakiin hargeysa ma ku dhex wada karo kute balse ilmihi qalbiga uga xadaayaan arag geedkii soo gadatay gacantay ku xiratay muxuu dhibaa waa midkii iriska oo gacanta ku xiran markaas ayadoo jidka maraysa askari oo isla iyaga ah oo ku cuqdadaysan aha arkay naafuro yiri markaas ay tiri maxaa u furaa muxuu ka dhibaa kan waa furiyo wada dikala saldhigan ku geeyna igeey tiri nin la socdiya wuxuu yiri adeer waxba ha la murmine iska dhaaf wuxuu yiri iska bixi wallahi inaan bixinayna tiri way bixisa waa qabiya geedkii uu jarjaray كأنه أعوذ بالله من الشيطان محاسن سو عدو تنمدا سيتي كوبا وهذا waa canug tiirado dhali kara 100 jeer marka dadka saas waxaan u maleynaa waxa dambi ka galay dadkii 32 sano beenta u sheegayo beenta ku buuxiyay marka aan waxaan dhiiraa waxba yaa la burinina hala soo dhaweeyo runta hadday arkeen runta ha loo sheego in calankaas buluuga aan leenahay hal Soomaali aan nahay 5 Soomaali aan nahay 3 oo Jabuuti xornimo la siiyay labadan kala gumeysi hoos joogan waqooyi koonfurna ee walaalihiina kala maarmin inta badan hadda waaba yeeleen burunta waa ogolaadeen bas waa inta muuse biixi iyo reerkiisa oo nimcada iyo qumqumka ku haysto daaraha dhista sida kuwan anaga koonfur jooga camal mid kale waxaan la yaabanahay oo horta madaxweynaha Xasan Sheekh Ilaahaba ka dhiga madaxweyne Soomaaliyeed oo qarane kuwa baarlamaanka noogu jiro oo Somaliland aaminsan oo midnimada inay kala gooyaan aaminsan dadkaas laga soo saaray baarlamaanka si ra'iisul wasaare ku xigeenka ninkaas aqli ma laha umaleynaa Soomaali meel uu ka gala ma balaha qaran ka dhanuu matala hadduu adduunka tago qarannima lagu soo dhaweynaa markaas uu nin jabhad ah oo yiri hadda ka hor ma aragteen video oo ku jiro meelaha adduunka taariikh xun hadii ka harta ugu xun inuu baxay oo baqaar hortagay uu yiri baqaarka baawarka la igu guro lacagta keen markii lacag keen baa uu ku faanaa xataa lacag keen la yiri ku asaan dhow qorigaas ka xigo wallahi waa ku dilaa uu yiri hadda bal fiir waa ninka saas tuuga ah oo dad dhacay dad madaxweyne ay leeyihiin dad hogaamiya marka aan waxaan dhihi lahaa cuqdada ma fiicno 32 sano adduunka ma waxa ka tagaysiin waana la dilay dad oo waa isla dadkii oo isxukumay maanta hore waxay isla galeen god waxa u maleyn lafoodii xataa aboora cun waa go'een marka jiilka cusub oo dhashay oo adduunka uu horle adduunka casri waxa lagu faanayaa dayax gacmeedka la tagay horumara la isku faanayaa meelaha markii la soo gal annagana waa ka awood sareeya waa ku dilaa ana ka ku butir waa ismu xukumi kartid wallahi ana sanka ka duleelina wallahi ana ku dawladana war taas ma soconayso aqliga dib inta la isku noqdo aqliga ha shaqeeyo Soomaalinimo wax lagu waayina ka hoos wax lagu helaayo ma jirto marka waa ku dheeraadeen la faqootiyo waa mahadsantihiin dadkana waxba annaga nadiif ana qalbigeena ayna dhahay cudur qabtimaana wallahi qalbigeena nadiif waa cudur inaana qabin wixii dhintana Allah u naxariista adduunka waa la dhimanaa waa la dhalanaa ma fahanteen marka cuqdadaha iska saaraan maanta ayaga cuqdad qabo oo kor waxa ku qoran oo title-ka aan yani aan sheegin waxa tiri argagixisada Somaliland iyo argagixisada ugu smixiskaga waxay iskaga egyihiin inay dadka caburiyaan iyo waxay iskaga egyihiin labadooda calana isku eg midna madow waay midna cagaar waay cagaar kaasna madooba ma arkino meeshii xidigta cad loogu tala galay xidig madow waa ku qoran xidigta madowde la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah ku qoran midkaan kuwaana dhibayo koonfur joogana la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah ku qoran waliba kaaga darga korna waxay ku qoreen bismillaahir rahmaanir rahiim hadda fiiriya ummad Soomaaliyeed waxba uma dhiman bini aadan waxba uma dhiman laakiin ilaahay ayaa dagaal kula jirtaa ilaahay ayaa jisidiina idin siinay wixii dhibaayna waa laga gudba haddana shabaab waaba soo afjarmaybo gabalkoodii waa dhacay meel kasta waa fashilmeen maxaa halmar isla fashiliyay arha layga jawaabo su'aashaas waa idin dhex dhigeen hal mar maxay iskula dhaceen ayna ayirsadeen ayna dhulkoodii ka xoreysteen waxaan rajaynayaa dadkan kale koonfurta joogana sidaasoo kale inay u fahmaan dhagaraha argagixisada waxaa ii soo haray waxyaabaha erer Soomaaliya waxay sheegaan war anigu daaroodaan nahay ninka hawiyo walaalkii oo dariskaan nahay aan nabad kula noolaan karo kaas dad igu xigo qof walba aan nabad kula noolaan karo maxaa waaye sharafkaysa iyo ciidadeeda dhowri karo qofkaas dadkay walaalkii ah daarood hawiyo hada jareer ahaad aniga oday daarood waa hor dhintay hawiyo aan qofku ixtiraami maayo qofka aniga saaxiibkay ah ama walaalkayga waa kan darisnimada ku noolaan karo marka SNM
haddaaba fikirkeena gurxan idin raaco war maxay tahay erer somaalidan mataqaana muqdisho lagu qarxinay muqdisho 5 milyan intaasoo malaayiin baa maalin ku dhintaan waa maxay goormay erer somaalimadu shaqaysaa wanaba yahow dadka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa may adu shaqadaada okaad adigu amarka ma lihid annaga ala amarkay okaadi adigu gacantaada taago waa ku siinayaa naasir baa ku marka neew dadka soomaaliyeed waxaa ugu baaqayaa waxaan waa argagixisan lagu dhex abuuray argagixisaduna laba shay bay badanaa taageeraysataa dadka hormuudka waa bulshadaas dhinaca halganka iyo dhinaca aqoonta markaasaa ku leeyahay anu iskama hadlay dadka raawdal waa dadka soomaalida ugu aqoon badan xagga xadaarada dadka reer soolna waa dadka halganka soomaalida ku suntan waana urur walbo argagixisa wuxuu bartilmaameedsado hadda raawdal imsuu ka dila hadda dhigyacabkan joogo ee argagixiyaha ah ee korneeltuka gabaley uu ku baacsan jiray imsuu dilay intaasoo 100 qof buu dilay wuxuu ku dilay waa dad aqoon-yahaniina wax bartay sidoo argagixisadu lama tuso qof aqoon-yahan wax bartay iyo qof geesiyo halgan ku suntan reesolna waa dad halgan ah Soomaalidu dadkaasna halgan bay ugu suntan yihiin raawdalna xagga aqoonta iyo xadaarada ay ugu suntan yihiin ugu dambeyn waxaan hadalkayga kusoo gunaanadayaa waxaa ilaahay mahadiyaa shacab weynaha Soomaaliyeed meel walba ha joogo maanta in filankii argagixisada la fahmay ayna beena hawaasiinta iyo munaafiqiinta iyo dabaqoodigu waqtigooda soo dhamaaday ayna soo afjareen mujaahidiinta reer Sool waxaana sidoo kale rajaynayaa dadka reer awdal ee aqoon-yahaniinta ee xadaariyiinta ee dadka Soomaaliyeed xagga aqoonta indhaha ugu ah sidaas oo kale inay halgan bilaabaan ayna isaga qaadaan reeriyadan argagixisanimada ah ayna iska xoreeyaan calanka xanka oo cagaarka oo casaankeenu garanayn wax ku qoran waayo wax badan baa loo dhibaatay calanka buluuga dartood wax badan baa loo bilatay xasuuq dila wax badan baa loo dhibaatay waliba dhiigacabkan waxa xasuuqay bariga yiri anigoo wax dili kara seen qori u dhigaya sidaas oo kale doonaya adinkana inaad ugu dabadayataan halkan campaign aynu ka bilowno waxaad ogaataan argagixisadu wallahi billahi tallahi wa fulayo waxa fiirino hubkooda laakiin mar walba jaajuuska iyo munaafiqu maalmo yar buu lugaha dhulka ku haysanaya waa cararayaan 15 daqiiqo la saarood 14 wiilo baa ka cayrisay markana way adinkana ha dhowrina waqtigu waxaa la joogaa baanta Soomaalida ama dadka waqooyi waxa uu curtay guugi gobonimo doonka soo celinta sharafka qiyamka dugsashada calankayga buluuga ee sharafta leh marka ree awdalo sidaas kala idinka doonayna billahi calaykum meeshan ka kaca waxaad imaadaan wasiir xamud runtii ninka waan raawdalo mujaahida wasiirka arrimaha dibadda mar soo noqday inaad qaadataan hadalkiisa ayaanu idinka doonaynaa waxaan ku soo koobayaa hadalkayga SNM gobolkeeda dhacay warheede xaraantida u dambeysay lagu dhufto waa carartay marka nooyo intaas uga baxaya niyo mar labaad la foqoto inaad aad baan kugu mahadcelinayaa inaad mataqaana meelahan inay iska hantaacaan aad tusto in mataqaana la hadli karo ay lafaha ay sitaan ayagoo watay meeshan ka buuqi karaan aad u dulqaadan karto aniga iga dulqaadan maanta 2 daqiiqo la joogay wallahi de wax aqliyada iska leh ya mar qaar lagu hadlaya waxay ku leeyihiin SSC waa argagixiso haddana wuxuu ku leeyahay waa daaroodu waa faqash haddana inuu maamulo rabaa walaalo aqliyada xagee ka shaqeysaa yani aqliyadu baleeg marka argagixisadu hadda waxa weeye waa neef gowracan geed kama waabtay hal israaciyo waraawdalo adinkana fadhiga ka kaca marka aad baa u maasantaa la foqoto saaxiib ku mahadcelinayo mar labaad waa maadsantahay naasiro annagu haddaanu awdal lahay in badan bay iyaguba lafsiteen annaguna lafti waanu soo qaadanay maxay ahayd kuwii dilaanu soo qodanaa kuwii boorma lagu laayaanu soo qodanaa laakiin maaragtay hablaha iyaga iyo wiilasheedii baan u baahannahay oo maaragtay annaga jeelalba intii aqliga lahayd ka buuxdaaba aqoonta lahayd intii kalena waddanka way ka yaaceenba oo maaragtay dibadday maaragtay meelahaasay baagamuuta ku wada yihiin marka laakiin waxaasi ma shaqaynayo oo nasrigu waxaan ku yiri ilaahay unna macal usri yusra buu yiri marka nasrigii baa soo baxay maxay ahaydee ama Soomaali diid ama Ingiriis dhabarka ku sido ama maxay ahaydee cirka ka soo bood adiga yaqaana waxaan ku xigsiinayaa wiilkii naga soo dhaxgilgeli war soo bax adiga maaragtay ku kala ku jira liya
libax والبلاسية aad هذا mahadsan الحال tahay إذا lafo qorte بقرتان isagoo waa ku lafo siinaya adigo injineerkaniga ugu qoranta waa ku siinaya adigana u kaadi gacanta taago nidaamka ha ilaalino qofkii hadlo hoos u deg dad baa soo codsanaya maxay ahayd aslamtaasaa la buufinaya nimanka maaragta caalanka laa ilaaha illa allah intay ku ناصر qorteen ناصر maaragta هتجن dadka ناصر هتجن شوك هذا ناصر يا إسماعيل يتوجا ستح دار لنا يسكت تسيا may waa ku ما siinaya يسلمت ووليد caaqilka waa ما siinaya ستح دار نسيا الله يا ستح la دار lafo qorte نسيا إسلمت may waa ku lafo qorte siinaya si fiican aslamta buu waa daadinaya siinaya bro aslamta cid kala buufisa